mid ka mid ah basaska yaryar ee u kala goosha ama u kala rakaabsada gobolada Somaliland iyo Puntland ayaa ku dhacay dowga degmada Sheekh waxaanu sababay shilkani dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca 7 kale xubnaha ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta degmada Sheekh oo iyagu gurmad ku soo gaaray goobtaasi ayaa ka warbixiyay khasaaraha shilkani u geystay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saaka waxa ka dhacay buurta dowga Sheekh baabuur ay leedahay shirkadda socdaalka ee Sky oo ka soo baxay Boosaaso gaarigaasi sida la sheegay wuxuu siday 10 ruux shan ka mid waa dhaawac 3 qof waa meyd 4 qofna waa fayowiin waxa weeyaan waxa noo raaca 3 meydka oo aanu si dhaqso ah u sugaynay la aqoonsado anna wali aqoonsan ambalaasadii inoo keenay 3 ambalaas intii dhimashada ahayd waxaanu geynaynaa berber u qaadaya talaagada halkaas lagu ridayaa dhaawacana waa la qaaday isagana waxay ka shaqo halkan inoogu xaray isbitaalkii maba jiraan aad baan ugu mahadnaqaynaa gobolkana gurmadka fiican ay sameeyeen. sidoo kale taliyaha ciidanka wadooyinka ee gobolka Saaxil ayaa waxa isaguna uu sheegay sababaha dhaliya inta badan shilalka noocana waxaanu tilmaamay in loo baahan yahay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado wadayaasha kala duwan ee iyagu wada gaadiidka had iyo goor. waxaan gaadiidleyda siiba kuwa shirkadaha siiba kuwa basleyda ee wadooyinka soo gooshaya gobolada rakaab ka soo qaadaya waxaad moodaa nimanka waliba gaar ahaan bari ka imanaya inay ku asqoobaan buurta waxaan leeyahay baabuurta hala jeegray amar baana la siiyey waa ku dhaqmaynaa baabuurkii aanu ku qabanno cillad iyo xawaare iyo faas oo aan hore ugu shaqeynay talaabo sharciga waa fasoo qaadaysa Ahmed Maxamed Xaashi ayaa waxa uu fariin u diray wadayaasha gaadiidka kala duwan ee had iyo goor u kala baxa gobolada Somaliland waxaanu tilmaamay in looga baahan yahay inay muujiyaan taxadar inta ay ku jiraan safarka. sideedaba baabuur waxaan la kulannay waanu gurmad u soo sameynay shilka ka dhacay buurta Sheekh sideedaba baabuurtan basaska ah ee ay shirkaduhu leeyihiin waxaan anu u arkaa inay sidii caadiga ahayd u socon waxaan fariin u dirayaa inay si wanaagsan oo degan oo rakaabay sidaan ay u socdaan haddii baabuurka xadkiisa la dhaafiyo waxa weeyaan taa dhibaatada iyo tuka badan baa dhacaysa maalin walba waa shil taagan wadadani oo dhimasho iyo dhaawaca si taa looga taxadiro waxaan farayaa qolada baabuurta inay baabuurtooda si wanaagsan u socdaan sidoo kale qoladan kale ciidanka nabadgelyada ee gobolka iyagana waxaan farayaa inay baabuurta u fiirsadaan wixii baabuur ah ee aan socodkiisu saxnayn oo baabuurka aan saan u socon amaba xadkiisa dhaafa inay talaabo ka qaadaan.